runtii muddada yar ee wasiirka wasaaradda uu joogo aragtiyo xoog leh ayuu noo keenay marka maanta mid kamid ah inay miro dhasho oo naloo daafuro sharaf ay noo tahay runtii luqadaha muhiimad gooni ay leeyihiin qoom haddii aad rabtid inaad ka badbaadid shartooda waa inaad luqadooda fahmi kartaa 150 milyan oo dirisna la ah in wasaaradda arrimaha dibadda dad badan oo luqadooda ku hadlay inaysan jirin waa nasiib darray ahayd laakiin maanta ayaan ka baxnay oo aan wadadeeda raacnay sidoo kale 300 milyan oo aan ku biirnay oo East African Community ah iyagana luqadoodii maanta barashadeeda inaan bilowno waxay noo tahay farxad oo runtii ay ka mid tahay waxyaabaha mandate-ka ee la ka rabo markaan shirarkooda tagayna inaan ku hadalno Swahili oo mambo iyo Vipi anagoo dhahayna la arko marka waxaan rajaynayaa iyadana in tallaabo hore loo qaaday oo wanaagsan ay tahay mudaanteeda la siiyayna aan ka soo bixi doono haddii alla idmo mudana wasiir maxadka agaasim ambassador Abdulqaadir Amiin runtii dadaal xoog leh muddadii gaabnayd uu joogay dadaal xoog leh ayuu muujiyay dadaaladiisu waxaa kamid ahayd marnaba kama daalaynin in uu su'aal weydiiyo inuu weydiiyo sida ugu fiican ee uu hirgelin karo hawsha loo igmaday waxyaabaha xusida mudan waxaa kamid ah xilliga uu ka shaqeynayay curriculum-ka waxay ahayd in uu baxthi badan sameeyo ama su'aalo badan uu weydiiyo isagoo qofna dhahaynin qofkan kuma fiicna ama waa ku fiican yahay aanan dhahaynin laakiin qof kasta uu arki karo inuu garabka heli karo ayuu kuna noqonayo u dhahayo waxaan u baahanahay arrinkan maxaad iga saacidi kartaa marka waan ku ammaanaynaa waana ugu mahad celinaynaa your excellency hortaada inaan mahadaas siina ayaan jecelnahay warka intiisa badan waxaa iskala wasiirka waxaa kusoo koobayaa inta nasiibka u yeelata fursaddan inay ka faa'iidaysato in ay u arkaan waajib diini ah inay u arkaan waxbarashada waxaa la dhahay u aada walow kaana siina China ha noqoto hadday rabtay ka doontaa la dhahay marka fursaddii oo inta loo soo dhaweeyay wasaaradda loo dhex keenay dawladda biilkeena ay bixinayso in haddana laga faa'iideyso way nasiib darray noqon doontaa marka waxaan rajaynayaa 6 bilood kadib ama sanad kadib dad fluent oo luqadahaas ku hadlo inay noo soo bixi doonaan diblomaasiyiin carbiyaysan oo adduunka ugu matalo inay noo soo bixi doonaan ayaan rajaynaynaa haddii alla idmo